liqliqa wuxuusan lahayn la daabtaa waa ku laqayoon Soomaaliya ma qajideen xasan munaafiq wuxuu ordaba af libaax buu galay dalka Turkiga baan ku wareejinaya baarlamaankana waa la kala diraya marshal law baa soo baxay United Nations iyo European-kiina waxay ku soo rogeen go'doomin bad buu ku jiraa wuxuu yiri Allah ilaahay bad bay keentay doonidan laha baylo ugu dhoof bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sayyidina muhammad salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kulanti waana wanaagsan dhamaan umada Soomaaliyeed goob kasta iyo goor kasta joogtaan waa barnaamijkeena iftiiminta xaqiiqooyinka oo aynu maanta isku dul taagayno xasan iyo kooxdiisii wuxuu yiri wax badso wax beel bay dhashaa war hoy ka daa ay dabanahna war ha iibin war dabanahna war waadal ay dabanahna war ciidanka ay dabanahna ka hadi weyday xasanow waa ku haysataa soo dhawaada barnaamijkana si share garay hadii salaadu ku joogtaan oo soo tukabad hayna galin hadii kale nabiga ku sallallahu allahumma salli ala sayyidina muhammad niki xasan shiikhaha ee dalka Soomaaliya u haystay hudeel uu isagu leeyahay eegay maantu hadaba bad ku jira maanta ayuu af libaax galay laba qodob baan rabnaa inaan isdul taagno qodobka koobaad waad aragteen warqad wiifta ah oo lalaysa oo safaaradda Mareykanka gashay intayna dhaaftay oo uu leeyahay dekada Berbera iyo dekada Boosaaso iyo airportka Balidogle iyo kan Boosaaso iyo kan Berberaan ku siiyay Mareykanow adigu qaado warqada aad arkaysaan xasan baa qoray wuxuu u qoray Donald Trump ilaa qofku haduu iimaanka beelo oo aanu siyaasad garanayn oo wixii uu haysto waxa weeye raashin u haysto eegay oo uu haysto macnaha wax la kala iibsanayo dilaalnimo haysto dibkeeda leedahay Mareykanka wuxuu la fuulay dekado iyo elaboro warqadaasi safaaradda Mareykanka ee Muqdisho wali kama bixin bal iska daayay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ma gaarin Donald Trump warkiisa badaa warqadaas uu qoray wuxuu uga daleeyay marka warqadan ujeedadeedu maxay tahay nin la og yahay dal iyo dad inaanu gacan ku hayn eegay oo maanta waxa weeye meel waliba ay baylah tahay dekada Berbera oo Somaliland iyo Boosaaso oo Puntland ay Mareykan ma ku siinaya horta warqadii hoos baa la dhigay Soomaaliyeed xagga hoose safaaradda la dhigay tan social media wareegaysana waxay ka soo baxday fiil qabyala anuu fiil wardhiig la oranaayo fiil qabyala la yiraahdo ayay ka soo baxday waa tan wareegaysa caalamkii oo dhan meel kasta baladeegi ujeedada marka waxaan u sameeyay maxay tahay Mareykanka in uu ka helo leef baan oran karaa arabin leef nah Donald Trump nin waalana inuu leef isaga jeediyo ayuu horta waxaan u sameeyay waa ma jara habaabin hadaba maxaa la ma jara habaabinaya waxa la ma jara habaabinaya heshiiska Turkiga iyo sababta Turkiga u tagay xasan waa ogtiin Turkiga u tagay Turkiga tagistiisa waxa ka horeeyay heshiis hadda ka hor baarlamaanku iyagoon akhrin la ansixiyay oo mustar ansixiye gambadh uu ansixiyo dubaha ku dhuftay sidii caadada ahayd waa heshiis dawlad kale la soo galay oo iyadoon la akhrin oo aan la eegin oo aan laga doodin oo aan la rogrogin oo aan la keenin golaha baarlamaanka xeetajinta balad eegay waxa weeye la ansixiyay muxuu yahay markii heshiiskaas waxa weeye dalka Turkigu inuu dalka Soomaaliya inuu maxmiyad u noqdo Turkiga kitaabo hore buugaag hore la soo rogay barigi halka ahaa dawlad Ismaaniya waxa oo ismaajid Muqdisho waxay hoos iman jirtay dalka dhan leeyahay xasan Muqdisho waa istaay Muqdisho iyo Soomaaliya iyo waxay hoos iman jireen Ismaaniya waxa weeye dawladda Cusmaaniyada loo horjeeday islaamka ahayd Sultan Hebel bay hoos tagi jirtay dhag turbal la rogtay dalka Soomaaliya in Turkigu maxmiyad ahaan u isticmaalo uu noqdo gobol Turkiga kamid ah Erdogan madaxweyne u yahay xasanna uu sii joogo Muqdisho taa maxaa dhacaya xasan iyo ninkale Erdogan laba qodob ayay meel dhigteen waana sababta keentay qodobka saddexaad ee maanta waxa weeye xakamaynta iyo go'doominta lagu soo rogay xasan iyo intii la ganacsanaysa fiil qabyala joogtay waxa dhamaan la xilxilaya raggii oo liiska asla gariya caalamka raggii xasan munaafiq qareeruhu ka fadhiyay mid baan isku taagaya biidnillaahi tacaala labada qodob waxay yihiin in ciidan dhow iyo 10,000 ah oo Turki ah in Soomaaliya la keeno beeskooduna uu noqdo cadale ilaa cadale waa ka qasriga ka dhistay
oo waxa weeye marka alyoomkii yimaadana fiil qabyaalad tagaya marka dambana cadale u tagayo al-shabaab baa la dagaalay al-shabaab la dagaalamaya ma jirto al-shabaab masaajidka cali guduud bay qabsadeen masjid cali guduud ayay qabsadeen dhinacaan ceelasha biyaha iyo balcad bay joogaan wax al-shabaab la dagaalamaya ma jirtay bayskaas cadale in loo sii gogol xaadho turkigu wuxuu saldhig ka samaysanayaa meesha la yiraahdo cadale halkaas oo waliba uu doonayo hadhowna dayax gacmeed inuu ka kiciyo sidii caadada ahayd hadda kor waatu lahaa kan magaloodka Xamse madaxweynuhu 2060 ku joogaayo bustihiisa waa sii qaatay dayax gacmeed baanu kicinaynaa dayax gacmeedka la sheegay waa dayax gacmeedka turkiga beesku wuxuu noqonayaa cadale in dhowr iyo 10,000 oo ciidan ah oo saldhig weyn halka ay ka samaystaan oo wax weeye turkigu leeyahay deedna baarlamaanka Soomaaliya la kala diro sida caadiga ah baarlamaanka Soomaaliya la kala diro mar hadii baarlamaanka la kala dirana eegay wax sharci ah awal bad sharci ma jirine iyo wax nidaam ah iyo wax baarlamaan la yiraahdo iyo wax doorasho la yiraahdo ay meesha ka baxdo xasanna uu noqdo gudoomiye u fadhiya Muqdisho turkiguna uu la wareego waa riwaayada iyo riyada maalinta cad ah ee waxa weeye Erdogan iyo ninkii la yiraahdo Xasan ay waxa weeye ku riyoodeen oo astuseen heshiiskii marka hadda ka hor leenaga qariyay ee baarlamaanku iyagoon akhrin ay saxiixeen ee dhaqaalaha badan turkiga ku bixiyay waxa weeye Soomaaliya inay soo gasho oo maxmiyad u noqoto dalka turkiga oo dhammaan Soomaaliya oo dhan dalka turkigu la wareego maadaama caasimadii Muqdisho oo gacanta ku dhigay in Soomaaliya oo dhan gacanta ku dhigay waana siday tahay baladay markii caasimaddaadii la qabsaday dawladnimadaadii eegay waxba ma jiraan way maamul goboleedyadu sidooda iska taagnaadeen ha iska waxa weerahooda iska qaraab doonteen nafsi qof waliba ha gala way heshiiskaas wuxuu ahaa in turkigu la wareego eegay awal iyo aakhir ba dalka Soomaaliya oo isagu mas'uul ka noqdo caalamka oo dhan isaga wax laga weydiiyo taas waxay keentay marka ilaan turkigu Soomaaliya turki kaliya boob ma ya caalamka oo dhan ba boobaye ilaa waa timir xabaal taal bay Soomaaliya noqotay Yurubiyankii ayaa kacay Yurubiyanka haduu kacana United Nations baa kacay Xasan waxa la saaray go'doomin waliba waa loo hanjabay inta hanjabaada isaga loo hanjabay iyo waxa lagu sameeyay aanan idin dul istaagin waxaan rabaa Xasan horta wax Allah ali wixii garbiisa joogay masaadiq Suuriya ma Liibaan Buurba ma ugas dhagayba dhammaan wax Allah ali wixii dilaal isaga u ahaa ee buqcadaha u iibin jiray ee dhulka danta guud u iibin jiray ee ciidanka leen jiray ee mushimada dhigi jiray ee dhaqaalaha samaystay oo dhan beesha caalamka United Nations iska beesha caalamka taa maqashid waa United Nations ilmo Yurub joogay ganax dhamaantood waxa la saaray inay xabsi wada galayaan meeshii lagu arko in lagu xidhayo waa saadiq Suuriya waa Liibaan Buur waa ugaas dhagay waa ninka loo hebelka Maxamuud la yiraahdo adu waa dhowr iyo 10 nin aad aragtaan warqadaasi ku qoran warqada hortiina taala ayay ku qoran waa dhowr iyo 10 nin kan nin waxa loogu talagalay meeshii lagu arko eegay in xabsi la dhigo haddaba Xasan maxaa la yiri markii kiiskani soo baxay turkiga ileen ma jar habaabin bay ahayd dekada berberaha ku siiliya dekada berbera mise haysta oo awood u leh boosaasaa ku siiliya mise geen kara boosaaso oo tagi kara ma jar habaabin bay ahayd iyo shacabka in maskaxdooda iyo maamkooda lagu jeediyo maadaama reer Soomaaliland iyo reer Puntland ay waxa weeye xagga soo qarasay siyaasadda iyo hadalkii dad hadal badan oo wax dhaqaajiyeen in focuska xagga la saaro nimanka maamulada haystana loo sameeyo suuq loo sameeyo oo iyaguna markooda soo hanjabaan jeedada laakiin saxda waxa weeye dalka in turkigu la wareegayo ariga Yurubiyankii waxa dheen waxa la yiraahdaa Xasan oo soo dhawow waxa la yiraahdaa adiga iyo xaasaskaaga iyo caruurtaada eegay mooryaanta ay dalkii dadka boobaya ayaa ku xiga saadiq Suuriya iyo ugaas dhagay iyo Liibaan Buur iyo rag la midka xabsi baadna gelaysaa si cad baa loogu sheegay Xasan talawacay baa la yiri adaa ku xiga you are next baa la yiri adiga iyo xaasaskaaga iyo caruurtaaduba jeelka liinta ku cabaysaan هذا صادق سوريا واسنجي يبى مرسى الليبان بور ليبان شلط يبى مرسى هذا كل حاجة بقول حسنوا هذا تشوتين
dalkan aad ku wareejinaysid turkiga turkiga wuxuu diyaarsaday ciidan tiro badan oo dhowr iyo 10,000 oo ciidan ah dhowr iyo 10,000 ayaan dalka kugu qabanayaa baa la yiri dalkana maxmiyad baan gelinaynaa mas'uuliyaddan anaga qaadanaa adiguna waxaad noo noqonaysaa hosted eegay house niga baan noqonaysaa anaga waxa weeye naga hoos shaqeeya house nigarka waxa la yiraahdaa barigii gumeystihii Mareykanka dadka madow waxa weeye adoonsan jiray kuwa baa jiray FF ah oo fataal ahaayo waxa weeye u dhaxayn jiray dadka la dhibaataynayo iyo qolada gumeystaha cadaanka ay u dhaxayn jireen oo guryaha dadka cadaanka iyo hambada iyo ka cuni jireen dhar caadi ah xidhan jireen aduu FF baa la yiraahdaa fiiri fataalay haayo kuwaas house nigar la yiraahdaa oo waxay u khidmayn jireen cadaanka aduguna house nigar noo noqo baa la yiri oo halkaas loo fadhiyo magac u yaal ah dalkan anaga la wareegayna haday shidaal tahay haday khayraad bad tahay haday mid dhuleed tahay meel kasta anaga gacanta ku qabanayna muqdishona waa ku qabanaynaa ilaan xasan Soomaaliya wuxuu yaqaanaa muqdisho Soomaaliyadaad maqashay xasan wuxuu u yaqaanaa muqdisho warqadan wiiftada ay meelahan maraysaana waa ma jara habaabin laakiin Yurubiyaanku Soomaali maaha oo waxa weeye caadifada hal mar dadka dhan hada wada qaynaya dekada berbere ma hooyada baale Soomaaliland iyo nimankii isaaqo qaynaya banarka iyo hartiga iyo beelaha ka qaynayo ma boosaasu iman kara yaa idin socda warqadan safaaradda ma dhaafinba maba dhaafin safaaradda laakiin ujeedku wuxuu ahaa turkigu inuu dalka la wareego Yurubiyaanki iyo qaramada midoobay iyo waxa weeye imaam Mareykan iyo galbeedkina waa ka war heleen waxa dheen Turkiyow anagii meesha intaas oo sano dhaqaalaha ku soo bixinay doonayna adu kaliya cuntid bimaana waxa weeye Soomaaliya waa neef bisil oo si fiican loo dubay eega oo miis saaran oo nin waliba midida oo afaysanaya weeye sidoo cadkiisa iyo garabkiisa u goosan lahaa baladeegay Xasan maantu god galay wixii hore buu yiri waa udaa wixii hore shilinta siiya dalkii oo dhan buu rabaa inuu iibsado waad ogtiinay Turkiga guryaha uu ku leeyahay hantida uu ku leeyahay eegay Erdogan saas uu wuxuu yiri war dalkan waa baska baylaha ma qaadataaba maska qaadataaba debigiisa waa qaadanaya buu baarlamaankana in la kala diro maadaama doorasho qof iyo codana warkeeda badaa riwaayad ahayd teendadina Xasan Aawn rabay inuu ku noqdo eegay wuxuu yiri dalkan ma marshal law bangalaya marshal law xaalad degdeg ah emergency waa dhacay wadanka waa la qabanayaa buu yiri dhowr iyo 10,000 oo Turkiga buu isku gurdo markuu ciidankii Soomaaliyeed laayay dalkii baabi'iyay buu yiri bal nin ciidankiisii laayay oo Turki ciidanka doonay maartay wuxuu haystaa waa hodeel nimankan hawiyana dhibaato haysata siyaasiyiinta hawiye maaha shacabka dad sharaf leh siyaasiyiinta hawiye dhibaatada haystaa waxay tahay siyaasadda ganacsi oo arkeenba hawaashkan iyo toontan ay xidhxidayaan eegay ayay u haystaan nimankan siyaasadiiba mid kasta oo siyaasi hawiya wax ka dhaadhacsan maalinka uu waxa weeye xil qabto ama siyaasadda ka qayb galo inuu milyaneer noqonayo siyaasaduna milyaneer ma noqdee dal iyo dad baa lagu hagaajiyaa mar haddaan gabayga uurkoo bukiyo arabi ka keenin afkuun baad ka leedahay tuxuu arar ma yeeshaan siyaasadda sharaf iyo karaamo lagu helo hadaadan u gaajoon hadaan hantidaada ku bixin siyaasiyiinta hawiyana waxay aaminsan yihiin maalinkay waxa weeye xil qabtaan ama siyaasadda galeen inay milyaneer noqonayaan waana ta keentay maanta dalkii dhamaa Xasan munaafiqiin sanadka Ilaahay cimri dheer iyo caafimaad iyo cibaado subayn u gaarsiyo inta xanuunsan Allah caafiyo inta dhimatana Allah u naxariiso dalkeena barwaaqaha ummadda Soomaaliyeed oo gacmaha is qabsata musiibooyinka iyo balaayadan Ilaahayna hareer bariyo iimaan laawayaasha iyo madax ku tidii hargumaysan Rabbi inuu dhinac inoo dhaafiyo ayaan Rabbi inooga bariyaa warsan iyo nabaadino salaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh